بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان waxaan idinkugu soo gudbinaynaa war degdeg ah dagaal xilligan ka dhex socda Hindiya iyo Pakistan barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee duqeyntan dagaal ka socda saddex aag oo kala duwan telefishinka dawladda waddanka Pakistan ayaa hadda waxa laga tibinayaa in diyaarada laga soo riday ciidanka Hindiya jawigu waa sidan barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladan Pakistan oo gebi ahaanba xirtay hawada waddankeeda sidoo kale qasaare ayaa la soo warinayaa dhanka Pakistan ilaa hadda maxaa ka dhacay sidoo kale Hindiya maxaa ka soo kordhay oo qasaaraha oo jira ma dhaba in Hindiya saldhig military oo ay ku lahayd gobolka lagu muransan yahay ee Jammu iyo Kashmir cagta la mariyay israasaaseen iyo duqeymo culus oo xilligan socda Donald Trump oo ka hadlay Pakistan iyo Turkiga oo ka wada hadlay dagaalkan Hindiya iyo Mareykanka oo iyaguna ka wada hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo isna hadlay dhammaan wararkan iyo xaaladda sida ay tahay xilligan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada marka la daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan gebi ahaan waxaynu ku soo qaadanaynaa xaaladda dagaalka Hindiya iyo Pakistan arrintan waxay ka dambeysay kadib markii Hindiya ay 3 gantaal ku lufatay gudaha waddanka Pakistan iyadoo sheegaysa in ay beegsatay goobo u ahaa gabaad si hadalka u dhigtay kooxaha argagixisada haddaba wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan ugu yaraan 2 qof in la sheegayo inay ku dhinteen halka dhowr iyo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta Pakistan ay ka geysatay gobolka Punjab iyo waliba gobolka Kashmir ee lagu maransan yahay waxa la sheegayaa mid ka mid ah gantaalada in lagu dhuftay garoonka dayuuradaha ee la yiraahdo Muzaffarabad ee ku yaala qaybta Kashmir ee Pakistan ay maamusho Hindiya waxay ku andacoonaysaa in goobo argagixisadu ay ku sugnayd ay beegsatay laakiin Pakistan war ka soo baxay waxa la sheegay in goobaha la duqeeyay ay kamid yihiin 2 masjid isla markiiba Pakistan waxay qaaday tilaabooyin degdeg ah waxay xirtay hawadeeda muddo 48 saacadood war ka soo baxay taliska Pakistan ayaa waxa lagu sheegay in degdeg looga jawaabi doono isla nus saac kadib weerar cirka dhulka iyo badda ayaa waxa qaaday Pakistan waxaana lagu soo warramayaa in ilaa hadda warbaahinta waddankaasi Hindiya ay xaqiijinayso in ugu yaraan 3 qof ay ku dhaawacmeen duqeymaha Pakistan laakiin waxa la leeyahay dhankaas waa dhanka rayidka laakiin dagaal ba'an ayaa waxa ka socda 3 aag oo kamid ah gobolka Kashmir ee xadka ah ee labada wadan ay ku muransan yihiin wasiirka difaaca ee waddanka Pakistan Khawaja Mohammad Asif ayaa waxa uu sheegay in Hindiya waddankiisa ay ku soo weerartay gantaalo isla markaasna waxa uu sheegay taas inay ka shalaynayso waxa lagu soo warramay in xilligan xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolka Punjab ee waddanka Pakistan sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Reuters isla wararkan sidoo kale waxa kamid ah telefishinka dawladda waddanka Pakistan ayaa waxa uu xaqiijinaya in 2 diyaaradood oo ciidamada Hindiya ay leeyihiin dhulka la soo dhigay kadib markii ay soo galeen hawada waddanka Pakistan macluumaadka sidoo kale waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa waxa uu sheegay in la ogsoon yahay in Pakistan aysan sinaba gacmaha u laaban doonin haddii la soo weeraro waxaana uu sheegay waddankiisa inuu u leeyahay xaq inay ka jawaabaan tilaabo kasta oo military oo Hindiya ay soo qaado waxa uu xaqiijiyay wasiirka uu yiri weerar fuleynimo ah in Pakistan ay soo qaaday isla markaasna Hindiya ay soo qaaday isla markaasna Pakistan wuxuu sheegay inay uga jawaabtay si adag macluumaadkan imika soo baxaya sidoo kale waxa kamid ah
war hadda soo dhacay oo sheegaya in mid ka mid ah saldhigyada ciidanka hindiya ay ku lahaayeen xadka lagu muransan yahay ee kashmiir in la burburiyey waxaana muuqaallo soo baxaya ay muujinayaan iyadoo wararku ay sheegayaan in cagta la mariyey saldhigaasi islamarkaasna halkaasi qaylo badan ay ka baxaysay sida lasoo dhigay baraha bulshada muuqaal halkaasi laga soo qaaday isla wararkan sidoo kale waxaa ka mid ah haatan soo dhacaya waxaa arrimahan ka hadlay madax kala duwan madaxweynaha waddanka maraykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay weerarka hindiya ay ku qaaday Pakistan inuu ahaa mid foolxun waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in xasaradda la joojiyo isla markaasna dagaal laga baaqsado xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna hadlay waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay xaaladan imika soo korortay wararka sidoo kale waxaa ka mid ah haatan soo dhacaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga Hakan Fidan ayaa waxaa la sheegayaa in wadahadal qadka telefoonka oo kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Ishaq Dar wax yar kadib markii weerarka hindiya uu dhacay dhinaca kale warbaahinta waddanka hindiya waxay sheegaysaa in la taliyaha amniga qaranka ee waddanka hindiya Ajit Dofal in uu qadka telefoonka kula hadlay xogayaha amuuraha dibadda ee waddanka Maraykanka Marco Rubio iyadoo lagu soo warramayo in laga wada hadlay arrimahan waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in hawada waddanka Pakistan la xiray muddo 48 saacadood arrimahan waxay ku soo aadayaan iyadoo laga cabsi qabo in labada wadan uu dhex maro dagaal xoogan oo la isku adeegsan karo nuclearka bacdama labada wadan ay ku hubayseen hubka nuclearka wakaaladda wararka ee Reuters ay waxay ku soo warramaysaa in xilligan laga maqlayo madaafiic iyo rasaas aad u culus saddex aag oo ka mid ah gobolka Kashmir gaar ahaan qadka lagu magacaabo qadka xakamaynta ee u dhaxeeya labada wadan afayeen u hadlay dowladda waddanka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in Hindiya ay beegsatay laba magaalo oo ka mid ah magaalooyinka gacanta ay ku hayso Pakistan ee gobolka Kashmir iyo magaalada saddexaadna ay tahay gobolka Punjab ee waddankaasi Hindiya waxaana la arkayay cisbitaalada oo la geenaya dhaawacyo iyadoo wararkuna ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid faraha ka bixi karta xilli kasta Hindiya ayaa waxay ku eedeynaysaa Pakistan in ay ka baxday xabad joojintii u dhaxaysay labada wadan isla markaasna ay soo qaaday weerar balaaran warbaahinta waddanka Hindiya waxay sheegaysaa in weerarka Pakistan iyo weerarka Hindiya marka loo eego uu adkaa ama xoog badnaa weerarka jawaab celinta ee ka yimid dhanka waddanka Pakistan sida wararka ugu dambeeya haatan ay sheegayaan macluumaadkan waa warar degdeg ah waxaana laga cabsi qabaa xaaladan faraha inay ka baxdo sababtuna waxay tahay labada wadan oo muddooyinka ugu dambeeyay waday hub urursi aad u fara badan isla markaasna goorsii horreysay oo maanta mas'uul sare oo ka tirsan waddanka Pakistan uu digni ku bixiyay dagaalkan suurtagal inay tahay in Pakistan ay isticmaasho nuclear haddii qatar la geliyo wali wuxuu leeyahay adduunyada hal wadan oo noqon doona badbaado ma jiro haddii la soo weeraro waddanka Pakistan marka xaaladan waxa leeyahay faraha ay ka bixi karta wixii warar ah ee soo kordha barnaamijka xulashada wararka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan gaar ahaan warkan degdeg ah waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rug caddaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano kuna takhasusay xanuunnada wadnaha caloosha iyo dheefshiidka kilyaha sambabada iyo lafa xanuunka Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta sidoo kale xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo takhasusyo kala duwan leh waxaa intaa dheer inaad xarunta ka heli karto adeegyo kale oo caafimaad oo ay ka mid yihiin daaweynta jirdhiska physiotherapy daaweynta cudurrada
maskaxda iyo dareenka sida walwalka murugada waswaaska iyo trauma xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ah ee Shepherd Bush wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda adreeska xaruntu waa 108 Goldie Hawk Road London W12